kamid ah hablaha qurbajooga u dhashay degmada Garadag ayaa deeq biyaha soo gaarsiiyay xaafadaha danyarta ku dhaqan degmada Garadag iyadoo degmada Garadag ee nawaaxigeeda ay ka jirtay biyalaan deeqdan oo ay soo wakiisheen gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga kulmiye Khadiija Caabi Cabdullaahi ayaa ugu horreyntii ka warbixisay deeqdan loo soo wakiishay hadaladeedina waxa kamid ah sida tan gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga kulmiye anigoo ah oo degmada Garadag hablo u dhashay ay soo wakiisheen deeq lacag oo biyo dhaamisa oo dadkoodana dhibaatadu hayso ee abaartu hayso ay uga naxeen oo ay soo wakiisheen oo maanta halkan aanu biyahan ku qaybinay wixii shirkad hela tii foosta hesha tii laba foosta hesha tii shirkad hesha tii afar shirkad hesha intaaba ugu qaybinay alxamdulillaah rabbil caalamiin jazaa allah khayr waanu nilaahay waxaanu leenahay sidaas oo kale inay ku soo daydaan hablaha muslimiinta ah ee la soo baxay lacagtooda la soo baxay sidoo kale iyaguna waxa halka ka hadlay qaar kamid ah dadweynaha iyaga la soo gaarsiiyay deeqdan biyaha iyagoo u maaciliyay hablaha qurbajooga ay soo gaarsiiyay deeqdan biyaha hadaladooduna waxa kamid ah sida tan hablaha sharafta leh oo ugu daaqay magaalada Garadag oo ay biyuhu ka yaraadeen roobku ka bacdi markii ay baalka dhaafeen hablahaas aad iyo aad u sharaf gudan yihiin waan loo ducaynaynaa oo ku fantaseynayna dadweynuhu loo ducaynaya waa inay iyaguna ku daydaan oo hablaha u dhashay iyaguna degmada Garadag ee qurbajoogtaasiiba ama se kuwa jooga dalka gudihiisa iyaguna inay saas oo kale biyaha ugu keenaan ilaa waa dadkoodii abaaraysan intaasaan iyagana magaranaysaa ay ka codsanay waxaan oranaynaa hooyooyinka iyaga kanu nabadii iyo biyihii iyo waraagii aan noo soo dirtee idin ka mahadcelinayna hooyo abaar iyo artaqurbo iyo waxaasaa hooyana haysto dhala ka hayaamay waanu haraadnay hadeera waxaa noo soo dirtay waa ku mahadcelinaynaa hooyo waa laydin ducaynaynaa dadweynaha ku dhaqan degmada Garadag ayaa si weyn ugu mahadceliyay hablaha qurbajooga u dhashay degmada Garadag deeqdan biyaha ay soo gaarsiiyeen xaafadaha danyarta isla markaana Ilaahay uga bariyay inay halkay ka soo saareen ugu bedelo wax khayr qaba oo madar sayre TV-ga qaranka degmada Garadag